saynisyahanada ayaa waxa ay sheegeen in dhagax weyn oo la qiyaasay ballarkiisu inuu gaarsiisan yahay 1.2 milyan uu ku soo dhici doono dhulka qiyaastii subaxa hore ee maalinimada Arbacada balse waxa ay intaasi ku dareen inaanu ku soo dhici doonin meeraha aynu ku noolnahay ee loo yaqaano Earth dhagaxan oo loogu magac daray 1998 OR2 ayaa waxa bishan April oo xilligii markaas la qiyaasay uu dhex mari doona qiyaastii in gaaraysa 3,908,791 mayl oo dhulka kamid iyadoo xawliga uu ku socon doonana lagu qiyaasay inuu yahay 19.460 mayl saacadii taasi oo u dhigan in uu 16 jeer ka fog yahay masaafada u dhaxaysa dhulka iyo sidoo kale ee dayaxa sida la daraasadeeyay NASA ayaa waxa ay sheegtay in dhagaxan qiyaastii uu soo dhici doono saacadu marka ay tahay maalinta Arbacada 5:56 qaybta daraasaadka walxaha ee NASA ayaa waxa ay in ku siman 20 sano ay isha la raacayeen xarakaadka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa dhagaxan Gianluca Masi oo saynisyahan u dhashay wadanka Talyaaniga isla markaana ahaa ninkii helay qalabka lagu eegayo ama lagu ogaaday dhagaxan loo yaqaan qalabkaasi oo loo yaqaan microscope ayaa waxa uu xusay in hadii aanu ku soo dhicin dhagaxaasi dhulka wali uu saameyn haddana ku yeelan karo adduunka saynisyahanada Arecibo ayaa iyagoo ilaalinaya nidaamka kala fogaanshiyaha iyo sidoo kale shaqaalaha la xadiday ee isugu imaan kara hal goob waxa ay wali isha ku hayaan iyagoo oo raacaya nidaamyadii ay isaga ilaalin lahaayeen cudurrada cusub ee coronavirus ka mid yahay la isku gudbiyo sidii ay isha ugu hayn lahaayeen bal hadba xaaladda cusub ee ka soo kordhi karta khatarta dhagaxaasi yeelan karo waxa kale oo Xuseen in dhagaxan yahay kii ugu weynaa ee dhulka lala xiriiriyo balse ma ahan bay yiraahdeen kii ugu weynaa abid ee la arkay ama la sheegay hore saynisyahanno u dhashay wadanka Ruushka ayaa waxa ay sheegeen in dhagax weyn uu ku soo wajahan yahay dhulka balse markii dambe waxa uu noqday mid yar oo ka duwan sidii la filayay ama lagu ogaaday microscope-ka waxa kale oo ay khubaradaasi sheegeen in saameynta uu dhulka ku yeelan doono ay tahay in la dareemo marka uu soo dhaco gariirka dhagaxaasi uu leeyahay iyo sidoo kale bay sheegeen in la arki doono boor badan haddaba marka laga yimaado saynisyahanada sidee bay u arkaan culimadu dhagaxan weyn ee la sheegay in uu inagu soo maqan yahay waxaan arintaa wax ka weydiin doonaa oo khadka telefoonka haatan iigu jira imaamka masaajidka Abu Bakr Islamic Center oo ku yaala magaalada Seattle Washington ee wadanka Mareykanka ugu horeyn waan ku soo dhaweynayaa Sheekh Ahmed su'aasha aan ku weydiinayana waxa ay tahay maxaad kala socotaa dhagaxan weyn ee saynisyahanadu ay ka hadleen sheegeen in uu ku soo socdo ama uu ku soo fooldeeyahay adduunka maxaase ay diinta islaamku ay ka oran kartaa ama sideeba loogu tiirsanaan karaa aqoontaasi iyo daraasadaadkaasi ay sameynayaan saynisyahanadu ay ku tilmaamayaan in dhagaxani uu soo socdo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا الإرشاد إيو تيفيغا هون كايبل تيفي دمان وايدين مهد علينا يا ولا السؤال شاد ويديسي مركا لفيريو لغحبا صورة عيبا وايهان ميديا هاد وقبطي ولا شيء يا رنتي وحان أورالها وحيابا عجبت بدن مركا مالين دويد أركي قصدان وعن صوح حصوصتي شن إيا لباتن سنة كهر وكون 1996 شنتي anigoo arday ka ah wadanka Suudaan ayaa jariida ka soo baxday wadanka Pakistan oo loo dhigay qadaya dawliyaba arintan lagu soo qoray 25 sano kadib ilaa 30 sano kadib inuu dhagaxaasi soo dhacayo say doontaba had noqotay waxyaabahan falaga ay sheegaan iyo saynis ahaanta waxa naga qusaya anaga waxa weeye inaan fiirino diinteenu maxay ka qabtaa inuu waxani soo dhici karo masa dhacday hadda ka hor inuu soo dhacay taariikhda oo xagga kore iyo samada wax laga soo daadiyay ama dhagaxaan ha noqdo ama waxyaabo kale ha noqdo xikmada ka dambaysa maxay tahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wama nursilu bil ayati illa takhwifa يعني آيات ربي مركو سور ريدو أي تمادو وحلوغة جيداي وعبسي جلين إن الددكو براروغان وي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
am amintum man fi samaa'i an yursila calaykum xaasiba. marka xaasiban waa cadaabka iyo waxyaabaha ummadda kor uga imaanaya weeyaan. rabbi wuxuu leeyahy in nasha nakhsif bihim alarda aw nusqid calayhim kisafan min asama. kisaf waa qiطcan min alcadaab baa ilaahay xagga kore iyo cirka uga soo daadinaya. haddaad fiiriso ummadihii naga horreeyay qowmu luut maxaa lagu halaagay? xijaara min asamaa'i, dhagaxaan baa xagga kore looga soo daadiyo oo lagu halaagay. abraha iyo ciidankiisii kacbada kusoo duulay waad aragteen tayran abaabiil, yacni ilaahay subxaana wa tacaala shimbiraha dhagaxaanta wada ayaa looga dhigay wax dusha looga soo daadiyo. haddaba markii laysku soo duuduubo way dhici kartaa in ilaahay subxaana wa tacaala aayad uu dadkan usoo dejiyo oo samada looga soo dejiyo oo dhagax iyo cadaab kaleba ay kasoo daataan, iyadoo xikmadu ay tahay cibra iyo cida in lagu waano qaato oo lagu wacdi qaato oo takhwiif ay dhacdo. rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam xadiis aada u qeexaya wuxuu yidhi fii aakhiri zamaani waxaa dhici doona khasfun wa qadfun wa maskh. marka khasfi waa dhullagoyn ayaa dhici kara, waxaa dhici karaa qadfu waa wax la tuuray. culimmadu waxay yidhahdeen waa xijaara, waa dhagax oo kaleoo xagga samada kasoo dhacaya ayaa dhici kara. haddaba walaalayaal aayaadkan maanta dhacaya oo coronaviruska naftiisu waa aayad min aayaatillaahi ka mid a oo adduunkii oo dhan ka wareerisay, oo khubaradii cilmiga taqiina iyo sayniska ay ku wareereen. dhagaxaan baa soo dhacayaa laleeyahay, lagu wareersan yahay. waxoo dhan marka laysku daro waxaan u daynaynaa inuu yahay aayad rabbi uu soo dejiyey, ummaddaanna uu tusinayo, awooddiisana uu tusinayo. arrinta ku jirtaana ay tahay ma lagu cibro qaadan karaa? takhwiif iyo cabsigelin may noo noqon kartaa? wax lagu waana qaadan kara ma yahay? marka way dhici kartaa ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabahan ay sheegaan culimmada falagu iyo qolyahan weatherka iyo ka shaqeeya sayniska, waxna wuu dhacaa, waad aragteen wax badan oo kamid a, wax badanna wuu beenoobaa. laakiin anaga muhiimadda iyadu waxa weeye inay dhici karto diiniyan, waa wax dhici kara weeye. ujeedaduna waa xigmad baa ka dambaysa inay dadku kuwaana qaataan. intaan runtii waxay xusuusisay masaa'il kale oo cilmi ah oo culimmadu ay muddo ay ku wareersanaayeen ama ay baarayeen, oo kamid ahaa masalada dhulku ma wareegaa mise ma wareego. ugu dambeynna runtii way sugeen inuu dhulku wareego. mar labaad waxaa soo baxay ma la aadi karaa dayaxa iyo qamarka ma la aadi karaa? ilaa ay culimmada islaamka qaarkood sida sheekh ibn cuthaymiin uu risaalo ka qoray la yidhahdo risaalatun ila samaa, oo dhici karto in la aadi karo. marka waxyaabo badan baa cilmiyan lagu ogaan karaa. culimmada islaamkuna ay ogol yihiin, sayniska iyo cilmiguna diinteenuna aynan isdiidanayn. laakiin arrintan markii gebagabadeeda la fiiriyo, annagu hadda ma dhihi karno dhagax baa soo dhacaya, mana oran karno ma soo dhacayo. laakiin waxaan leenahay hadduu soo dhaco waxa inoogu jiraayay waa takhwiif, in inaga laynagu cabsi geliyo, in inaga cida iyo wacdi uu inoo noqdo, in aayaadka rabbi aynu aamino. siday coronavirus ba adduunka ugu dhacay oo adduunkii dhanna shutdown oo hal mar u noqday, ayay tana suuragal tahay inay tahay wax tacjiiz iyo cajzi gelin oo ummaddu inaynan fahmayn. waa mahadsantihiin mar labaad. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. baad umahadsan tahay sheekh axmed nuur. kaasi wuxuu ahaa doctor sheekh axmed nuur oo khadka teleefonka igu warramayay kuna sugan magaalada Seattle, Washington.